Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Isuma dhiibin faqriga daran ee ka jiray deegaankooda. Asigoo 20 sano jir aan gaarin ayuu ka soo haajiray dalkiisa Suuriya. Wuxuuna galay waddanka Faransiiska. Amigiisa ugu weyn wuxuu ahaa sidii uu kaga bixi lahaa gaajada iyo saboolnimada. Faransa cid ehel u ah ama saaxiib kagama soo horeynin. Wax kasta hoos ayuu ka soo bilaabay ilaa markii dambe uu ku soo baxay mid ka mid ah maalqabeennada ugu hodansan dalka Faransiiska. Dhankan ay ku daydaan shakhsiyaadka doonaya in ay guul ka gaaraan dhan ganacsiga. Hadda waxaa lagu qiyaasaa hantidiisa ilaa iyo 3.4 bilyan oo dollar. Haddaba sidee ayuu wiilkii dhalinyarada ahaa ee kooytada ku ahaa dal shisheeye ku xaqiijiyay guulahani waaweyn? Wuxuu dhashay Maxamed Al-Darraad 9 bishii Maarso sanadkii 1948. taariikhda dhalashadiisa waxa uu sameeyay Maxamed carruurtiisa maadaama uu Maxamed haysanin dukumiinti caddaynaya goortii uu dhashay. Sidaas daraadeed wax badan lagama garanayo taariikhda noloshiisa 5 sano ee ugu horeysay maadaama uu ku dhashay miyiga Riqa ee dalka Suuriya. Halkan ayuu kula noolaa ayeeyadii dhashay hooyadii taa oo si xun ula dhaqmi jirtay Maxamed. Macaamil xumadaasi oo aakhirkii sababtay inuu Maxamed u soo wareego dhanka walaalkii ka weyn. Maxamed ayaa aad u jeclaa waxbarashada, laakiin ayeeyadii ayaa ka soo horjeeday riyadiisa, waxayna rabtay inuu Maxamed arig u raaco. Wuxuu ayeeyadii kula noolaa deegaan lama degaan oo saxaro ah, kuna yaala gobolka Riqa ee dhaca waqooyi bari ee dalka Suuriya. Maxamed ayaa buug ka qoray noloshiisii gobolka Riqa, waxaana buuggaasi la daabacay sanadkii 2002. waxaana buuggaasi hadda lagu dhigaa iskuullada dalka Faransiiska. waxaana sidaas loo sameeyey inay carruurta yaryar ka dhibil qaataan halgankii Maxamed, isla markaana ku dadaalaan waxbarashada si ay mustaqbalkooda u anfacaan dadkooda iyo dalkooda. Maxamed ayaa intii uu riyaha daajinayay aad u jeclaa waxbarashada, wuxuuna go'aansaday inuu bilaabo waxbarasho inkastoo ayeeyadii diidaneyd inuu tago goobaha waxbarashada. Maxamedna uu deganaa meel aad ugu fog xarumaha waxbarashada oo baadiye ah, dhankalna uu aad u xiiseynayay inuu wax barto. wuxuu ku qasbanaa inuu maalintii soo lugeeyo ilaa 10 kiiloomitir si uu u gaaro dugsiyada wax lagu barto. sidaas daraadeed maadaama uu ahaa arday dadaal badan oo rabitaankiisana ayeeyadiis ka soo horjeesatay, wuxuu caqabado badan kala kulmay ayeeyadii. dhan kale wuxuu aakhirkii kaalinta koowaad ka galay imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare, gaar ahaan kan gobolkiisa Riqa, taa oo keentay in dowladda ka helo deeq waxbarasho oo dibadda ah. laakiin deeqdaasi wuu ku qanci waayey, waayo waxay ahayd barashada duuliynimo, gaar ahaan duuliyada diyaaradaha dagaalka. waxayna dowladda u qorshaysay inuu cilmigaasi ka soo barto Kiev, Ukraine, oo xilligaasi ka tirsaneed midoogii Suufiyeed, dhan kalena xiriir wanaagsan la lahayd xukuumaddii Xaafid al-Asad. Maxamed wuxuu jeclaa inuu barto cilmiga tumaalnimada ee ma dooninin, islamarkaana xiise uma qabin inuu ka mid noqdo ciidanka cirka ee dalka Suuriya. sidaas daraadeed wuxuu dowladda u sheegay inuu safar gaaban ku tegi doono dalka Faransiiska, kadibna uu dib ugu soo laaban doono dalkiisa si ay dowladda ugu dirto Kiev, islamarkaana uu u soo barto duuliyanimo. laakiin Maxamed wuxuu goostay tigidh aan soo noqod lahayn, waayo wuxuu hoosta ka xariiqay inuu dalkiisa ku soo laabanin, dhan kalena u xaqiijiyo riyadiisa iyo hamigiisa asiga gaarka u ah. markii uu galay dalka Faransiiska ma lahayn qorshe xadidan, laakiin wuxuu go'aan buux ku gaaray inuu marnabo isu dhiibin faqriga iyo gaajada. isla markiiba wuxuu bilaabay inuu galo halgan adag, wuxuuna degay magaalada Montpellier ee dhacda koonfurta dalka Faransiiska. muddo kadib oo ku beegan bilowgii 70-meeyadii, wuxuu u wareegay magaalada caasimadda ee Paris, wuxuuna galay mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala dalka Faransiiska. aakhirkiina wuxuu gacanta ku dhigay shahaado PhD ah oo dhanka cilmiga kombiyuutarka ah. inta uu ku jiro waxbarashada, wuxuu ka shaqaynayay shirkad dhanka tiknoolajiyadda ka shaqaysa, taa oo Maxamed u fududaysay inuu helo jinsiyadda Faransiiska. markii ay u dhammaatay Maxamed waxbarashada, wuxuu u safray dalka Imaaraadka Carabta, wuxuuna fursad shaqo ka helay shirkadda batroolka qaranka ee Abu Dhabi ADNOC, wuxuuna shirkaddan u shaqaynayay muddo 4 sano ah. Maxamed ayaa sanadkii 1984 iibsaday shirkadda sallaanada dhismaha guryaha cusub ee la dhisayo ka shaqaysa, taa oo shiiday islamarkaana ku dhoweyd in ay suuqa dhismaha ka baxdo. haddaba maxay tahay shirkadda sallaanada ama jaranjaro? waa shirkad hawsheedu tahay fududaynta dhisidda guryaha dhaadheer ee ka kooban dabaqyada. haddii aysan jiri lahayn shirkadahani, lama dhiseen guryo dhaadheer oo qurux badan. marka aan soo koobo shaqada shirkaddani,
waa u fududaynta fuundiyaasha guryaha dhisa, jaranjartii ama meeshii ay istaagi lahaayeen marka ay dhisayaan guryaha dhaadheer. wuxuuna nidaamkani sahlayaa in wastaadka ku soo gaaraan agabyada wax lagu dhisayo si sahlan oo fudud. waxayna inta badan jaranjarooyinkani ka samaysan yihiin alwaaxyo ama bir adag oo si cajiib ah la isugu rakibay. waxayna dhammaan hawshaani fududaynaysaa in dhismaha guryaha dhaadheer iyo xitaa kuwa gaagaaban si sahlan oo dhib la'aan ah lagu dhiso. haddaba Maxamed ayaa milkiyey shirkad hawsheedu tahay sidan, wuxuuna shirkadiisa ku maalgeliyey dhammaan wixii lacag ah uu haystay. dhankan wuxuu tartan adag la galay shirkad hawshaan oo kala qabata, isla markaana laga leeyahay dalka Jarmalka. waxaana shirkaddan lagu magacaabaa shirkadda sallaanka dhismaha ee Bilita. laakiin Maxamed kolkeedii waxaa u suura gashay inuu iibsado shirkaddani Bilita, kadibna uu isku fidiyo suuqyada dhismaha ee qaaradda Yurub. wixii ka dambeeyay sanadkii 2003 Maxamed wuxuu ku soo kordhiyey shirkadiisa Aldaraad shamiit samaynta, maadaama uu ku jiro suuqa dhismaha. dhankan wuxuu u tafaxaytay inuu iibsado isla markaana la wareego shirkado badan oo ka shaqeeya majaalkan dhismaha, gaar ahaan dhanka sallaanada dhismaha. waxayna gaareen tirada shirkadaha Maxamed uu la wareegay ilaa 21 shirkadood, waxaana sanadkii faa'iido ahaan ugu soo xarooday Maxamed adduun dhan $130 milyan. Maxamed ayaa dhowr jeer hawshiisa dhanka dhismaha iyo guud ahaan ganacsigiisa dardar geliyey, wuxuuna howlaha ganacsigiisa gaarsiiyey ilaa 14 waddan oo u badan dalalka reer Yurub iyo dowladaha Khaliijka. waxayna tirada shirkadaha yaryar ee hoos imaaday shirkadiisa kor u dhaafeen ilaa 170 shirkadood oo ay ka howlgalaan ilaa 17,000 oo ruux oo shaqaale ah.